anigoo ah Abshir Cumar Cabdullaahi ah gudoomiyaha maxkamadda degmada Waaberi waxaan jeclaystay bulshada ku nool degmada Waaberi iyo degmada Xamar Rajab inaan ka wacyigeliyo iyo guud ahaan inta ka faa'iideysanayso bulshada Soomaaliyeed inaan ka wacyigeliyo arrin aan ku arkay maxkamadda degmada inta aan muddada 3 bilood ee aan joogay. kiis ayaa waxaa laga furay 11 bishii 11aad 2024 u dhaxeeyo dhinacyada ku xusan galka maaragtay kiiskaas anshax ahaan maadaama galka aanan magacyada la sheegi karin wajiyada dadkan aan la bandhigi karin anshax ahaan balse waxaan jeclaystay nuxurka inaan bulshada u gudbiyo si ay uga waantoobaan gabdhaha iyo wiilasha ku howlan arrimaha noocaas oo kale. waxaa la kulannay muuqaal laba qof oo waxa nin inaagtiisa ah inay sameeyaan muuqaalo oo anshax xumo ah isla markaasna muuqaaladaas ay u gudbiyaan waxa cajiib ah oo aan maskaxda ina qaadan weysay oo u jeclaysan inaan dadka ka wacyigelino inay muuqaaladaas u gudbiyeen familiyada qayb kamida inay u gudbiyeen oo familka qaybta kamidana lagu weydiisanayo lacag labadoodana heshiis markaa ku ahaayeen labada qofood ee marka muuqaalkaas sameeyay familkii loo gudbiyey waalidkii inuu markaa arintaa waxay sababtay inuu shil gaari galo arintaas darteed markuu arkay foolxumadii inuu markaa shil galo gaari isla markaana uu isbitaal muddo ku jiro waxaa marka jeclaysanay in bulshada aan ka wacyigelino ninka iyo naagtiisa qolkooda gaarka ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax sir ah ayuu ku qariyay sirtaasna looma ogolo ilmahooda ayaga ee dhaleen ayaa waxa la amray inay idan qaataan markay gaaraan wax kala sooca inay markay gaaraan inay idan ka qaataan waalidka markay galayaan qolkooda in lagu tarbiyeeyo salaada sida loo faray 7 sano in lagu tarbiyeeyo inay haddana markay guriga qolka gaarka ah ee labada waalid galayaan in lagu tarbiyeeyo inay idan qaataan marka idan qaadashadaas macnaha loo jeedo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ula jeedo wax oo gaar ah oo labada qof bareefis u ah ayaa meesha ku jira oo ixtiraam in la ixtiraamana ay diinta islaamka aad ugu wacyigelisay dadka marka arintaas ayaa waxa la keenay in moobiladii muuqaalada lagu duubay qolalka jiifka lala galo isla markaana waxyaabo qaab daran lagu duubo marka gabar walba oo Soomaaliyeed iyo wiil walba oo Soomaaliyeed fariinta aan u diraayo ay ku noolaada gaar ahaan gabdhaha iyo wiilasha ku nool degmada Waaberi waxay tahay in qolkiina gaarka aad ka ilaalisaan moobilada iyo aaladaha wax lagu duubo isla markaana marka hore aad isu guursataan arin diin ku saabsan aad isku guursataan aad isku doorataan dhaqan wanaagsan iyo asluub iyo akhlaaq in isku doorataan aan la isku dooran marka hore waa jeclaa iyo waa ka helay wax noocaas in marka dambe ku dhamaan doono